kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baddaawadayaal ku soo dhawaada waddanka koonfur afrika waxaa ka jirta mashaqo aad u weyn iyo sidoo kaleeto xiisad ku salaysan soo galootin naceebkii oo gacan isu beddeshay haatan waxa ay bilaabeen dadka reer South Africa in ay ku hormudaharaadaan safaaradda Soomaaliya ayay asbuucan gaareen halkaasi oo si aanan wanaagsaneyn ay ula dhaqmeen diblomaasiyiinta halkaasi ku sugan waxaa jirtay in ay u soo baxeen xubno ka mid ah safaaradda isla markaasina qaybo ka mid ah bulshada dadka madowga ah ee dalka koonfur afrika ee safaaradda ku hor mudaharaadayay ay markaasi si furan Soomaalida ugu caynayaan inay yihiin dad burcadbadeed ah dad sameynaya wax isdabamarin soo galooti si xaq darro ah ku jooga waddankooda isla markaasina ay rabaan in ay si degdeg ah uga baxaan dalkooda haddaba wararkii ugu dambeeyay South Africa iyo xiisadaha si laba lixaadsanaya haatan safaaradaha iyo u gudubtay dawladaha ayaa waxa iiga warrami doona oo aan khadka si toos ah ugula wada xiriiray Mahad Cumar Cabdi oo ku magac dheer Mahad Libaax isla markaasina muddo aad u dheer waddankaasi koonfur Afrika ku noolaa wax ku soo bartay muddo dheer degan magaalada Cape Town haatanse ku sugan Johannesburg iyo sidoo kaleeto Mustafa Shirwac oo ah nin dhowaantan loo doorto guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi waxa uu degan yahay Rustenburg meel la yiraahdo haddaba labaduba si wada jira waxay ugu jiraan khadka oo waxay iiga warrami doonaan aragtidooda ku aadan arrinkan iyo walaaca Soomaalida iyo dadyooga soo galootiga ay qabaan bal ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa in aan siiyo mahadow soo dhawow bal waxaad iiga warantaa arrinkan ku salaysan naceebka iyo waxyaabaha haatan aad dareemaysaan ganacsatada Soomaalida haddaad tihiin dalka koonfur Afrika walaal waa maasantahay Sahra waa boqolkiiba boqol waxaan dareemaynaa really culays laakiin culaysku waa culays oo waqti dheer oo taariikhiina soo hayay laakiin hadda maadaama uu safaaradihii u gudbay waxaad moodaa dhibka annaka noo gaar ahaa in mataqaanaa uu caalamkoo dhan oo gaaray marka waana saad u aragtid oo maaragtay intuu shacabka iyo ganacsade dhaafay ayuu hadda wuxuu ku fiday safaaradihii waa hagaag marka bal waxaad iiga warantaa maxay yihiin waxyaabaha ugu dambeeyay ee kicinaya xiisadahan dadka maaragtay lagu bartilmaameedsanaya gaar ahaana dadka ka soo jeeda dalalka Afrika dhibaatooyinka ugu weyn oo ay hadda ayagu afka ka sheegayaan haddii aan warkooda u xugmino waxay leeyihiin dadkii Afrikaanka ahay ayaa waxay naga qaateen shaqooyinkii annagu aan qaban lahayn marka waxaa loo bixiyey xenophobic maahan waa Afrophobic oo macnaha waa nacayb ku wajahan dadka Afrikaanka ee madow oo waddankan maaragtay amba sharci ku haystaan amba sharci darro ku joogaan amba mid qaxooti wax ku joogaan marka waa cabasho la xiriirta in shaqooyinkii ay dadka Afrikaanka ee soo galootiga ah ay inay shaqooyinka ay ka qaateen walow annagu aan aaminsanahay inay tahay mataqaanaa arrin oo siyaasadeed oo wax siyaasad la xiriira ay tahay ay si warka ay u dhigayaan aysan ahayn waa tahay siyaasad marka aad leedahay maxaad ula jeedaa waddanka waxaa ka jirto local government election dowladda hoose doorashooyinkeedii ayaa soo dhow waxaana ku loolomaya xisbiyo aad u fara badan marka waxaa jiro xisbiyo oo xag jir ah iyo xisbiyo dhexdhexaad ah iyo xisbiyo mataqaanaa conservative ah xisbiyahaas xisbiyo ka mid ah ayaa waxay rabaan ururka hadeer waddanka iyo gobolada ay Soomaalidu ay sida badan ku dhex ganacsato majority ku xukumo oo la yiraahdo African National Congress waxay rabaan in ay ka qaadaan localka oo shaqo la'aanta oo masaakiinta ay u tusaan in African National Congress ay u ogolaato waddankii inay imaadaan ajnabi Afrikaan ah oo ayaga shaqadooda qaatay ayada oo underlining tonka oo yahay in electionka ay doorashadu lagu baanish gareeyo mataqaanaa ururkii hore oo Soomaalida sharciga siiyay waaya waxaan u gudbayaa guddoomiye Mustafa Shirwac bal soo dhawow ugu horreyntii waxaad iiga warantaa dareenkaaga ku aadan dhibaatada loo geysanayo dadkan Afrikaanka ah oo Soomaalidu ay ugu horeyso ee dalkaasi koonfur Afrika aad baad mahadsan tahay walaashay Sahra adiga iyo daawadayaasha maxaa la yiraahdaa programkaaga
wallahi waad dareemi kartaa markaad ku nooshahay waddan aanan ahayn waddankaaga isla markaana oo ka jiro nacayb ajaanib nacayb aad u baahsan bulshadii ku nooleedna aad guddoomiye u tahay dhibka soo gaaro dareenka aad leedahay waad dareemi kartaa waa arrinaan aad uga xumaanay waa arrinaan aad uga xumaaday wax loo dulqaadan karana maaha walow aan dhihi karno dee waddanka dadka ku nool ama dadka soo afrikaanka ma aha dad wada xun waxaa jiro in yaroo ay ku jirto isra nacayb diidan laakiin bulshada boqolkiiba boqol waxaan dhihi karaa bulsho aad u fiican waaye qayb ka mida ayaa maaragtay waxyaabo kaleeto iyo howlo kaleeto gooniya ayaga u ah wato oo dadka maaragtay ajaaniibta ayagoo markaa ku baleemgaraynayo ama ku eedaynayo inay shaqooyinkoodii yaryaraa ay ka qaateen marka kulley shakhsiyan ka guddoomiye ahaan aad baan uga xunahay waxa walaalahin soomaalida ku dhacayo iyo afrikaan kaleetoba waa tahay dhowaantan waxay tageen safaaradda soomaaliya mudaharaadayaal reer south african ah isla markaasina waxa ay la hadleen xubnaha safaaradda soomaaliya halkaasi maxay u sheegeen aad waa mahadsan tahay saray haddii aan ku bilaabo dadkan mudaharaadka ama maaragtay kacdoonka wada horta wax bilowday sanadkan ma aha waa wax aad waqti dheer u soo socday waa dareemi kartaa 2008 wixii waddankan ka dhacay sidaa daraaddeed wax nagu cusub maaha in maaragtay ay nagu mudaharaadaan ajaaniibta ayagoo neceb oo mar walba cabasho gooni ah ama howlo gooniya wata waa sax safaaradda soomaaliya way tageen gruub aad u yar oon dhammayn 30 qofood aad u dhammayn ayaa tegey mana aha safaaraddeena tii ugu horreysoo la tago sanadka dhexdiisa waxaa la tegey 3 safaaradood waxaa ugu horreysay safaaradda nigeria ay tageen 2 jeer iyo safaaradda ghana ay tageen safaaraddeena waxay tii saddexaad oo la tago qorshe hadda ay bilaabeen inay safaaradaha tagaan weeye safaaraddan waxay ka mid tahay safaaradahaas la tegay oo hadda wax gooni ah ma jiraan diblomaasiyiinta u soo baxayna si fiican oo diblomaasiyadeed ayay ula hadleen taasoo ay u sheegeen inay cabashadooda qaadeen safiirkana u gudbin doonaan jawaabtana sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo siin doonaan dadka qaar waxay leeyihiin ma ahayn inay safaaradda u soo baxdo qaarkood waxay leeyihiin hadallo diblomaasiyadeed ay dad mudaharaadaya isagala hadleen oo macnaha aanan u qalmin soomaalida baa meesha lagu bahdilay oo waxaa la leeyahay soomaaliya waxay yiraahdeen waddan dadkiisa ay burcadbadeed yihiin dhaqaalihii burcadbadeed halkan ay la soo galeen dhibaato iyo caqabad annaga nagu ah ayaa la leeyahay marka sideed u aragteen jaaliyadda adinkoo ah waa mahadsan tahay safaaradda diblomaasiyiintii joogay waxaa la siiyey procedure meesha waxaa joogay booliis iyo waxaa joogay dadka amniga ilaaliyo procedureka la siiyena waxay ahayd protocol diblomaada la siiyey waxaa lagu yidhi dadkan imaanayo cabanayo haddii ay wadaan waraaqo cabasho ah oo memorandum ahna ka guddooma haddii oral ay tahay oo wax afka idinkaga sheegayaana ka guddooma lagu yidhi procedureka horta ku soo baxeen la siiyey markay soo baxeen dee way dhegeysteen markay dhegeysteen waxay yidhi cabashidin waa qabanay jawaab baa soo siin doonaa dhanka kaleeto cabashada dadka localka ama maaragtay isra-naciibka ay wadeenna dadka kooban ay wadeenna kolley waa dareemi kartaa markii ay raadinayaan xumaan ama dulduleelyo waxyaabaha propagandada oo maaragtay dadkeena soomaaliyeed sida lagu maaragtay propagando oo sida maaragtay burcabadeed oo kaleeto iska soo qaadanayaan laakiin meeshaan wax burcabadeed la keenay oo dhibaato waddankan lagu sameeyeen ma jiraan waddankaana waa waddan aad maaragtay u horumarsan soomaalidii joogtana waa soomaali sharciyada hadduu ahaan lahay constitutionka waddanka iyo byluska ilaaliso waaye waxaan dhihi karaa sida walaalkii mahad markhaati ka yahay ganacsatadeenna waa ganacsatada ugu fiican oo ilaaliso nidaamka iyo shuruucda waddankan waxaan qayb ka nahay oo mar walba support garaynaa dadkooda maaragtay maxaa la yidhahdaa u baahan donationka ama caawinta u baahan waxaan ka qayb qaadanaa markay qabaan munaasabadooyin waaweyn marka ma dhihi kara aniga dee waxaas ee meesha la yimaadeen wax saxayna yihiin mahado muddo aad u dheer baad degan tahay waddankaasi waxbaad ku baratay familaad ku yeelatay oo noloshaadii ganacsataad ku tahay aad baa lagaaga yaqaanaa dhibaatada haatan jirta markaad u barbar dhigto kuwii horey u dhici jiray ma kula tahay wax loo adkaysan karo inay tahay sidoo looga soo horjeedo dad yooga soo galootiga hantidoodana loo bililaqaysanayo ayagina loo dhibaateynayo walaal sahra horta haddii 30 sano lasoo dhaafay aan ku barbar dhigno waxa hadda meeshan ka socda waxa hadda socda waxaa la dhihi karaa waa 20% dhibaatooyinkii dhici jiray marka loo fiiriyo hadda muddo 5 sano ka hor 6 sano ka hor mar oo madaxweynihii hore oo Jacob Zuma la xukumay oo conviction uu ku dhacay madaxweynihii hore oo ka soo jeeda gobolkaas KwaZulu Natal
macnaha dadka dhintay waxaa lagu qiyaasaa dhowr boqol oo 60 qofood inay ka badan yihiin hantida oo ku barbartay waxaa la yiraahdaa waa billions and billions of South African rands dadka dhaawaca tirabeel ay ahaayeen wadanka dhan wuxuu galay waxa la yiraahdaa ungovernable marka dhibaatooyinku aad bay u soo jireen dhibaatooyin oo tixanaa bay ahaayeen anaka dii aan nahay Soomaalida meeshaan dhibka Soomaalida gaaro ama foreign-ka gaaro wuxuu ka kooban yahay 3 dhib nafeed dhib oo dhimasho ah dhib dhaawac iyo dhib oo soo gaara maalkeena iyo ganacsigeena iyo hantideena Soomaalidu waa dadka uu soo gaaro saddexdaba sababtoo ah adag kale oo Afrikaanka kale oo meesha jooga markii wax yar oo Ethiopian Bangladesh laga reebo inta kale waa dad caamiliin ah oo South Afrikaanka shaqada ay qaban jireen oo kala qabanayo laakiin Soomaalidu waa dad ganacsato ah marka Soomaalida dilka waa saameynaa dhaawacna waa saameynaa hanti boobkana waa saameynaa marka waa threefold Soomaalida problemkeeda waxa kaliya oo ay hadartan uga duwan tahay waa media coverage balaaran ayaa la helay markay safaaradda tageen dad fara badan oo naga sii jeeday ayaa hadda noo soo jeestay tusaale ahaan maanta waxaa shirayay safaaradihii Afrika oo dhan oo ka shirayay problemka ay society-ga South Africaanku ay keeneen inay dowladda South Africa wax ka qabato haddii aan si kale aan kugu dhigo sahraay meeshaan ajnabiga ku nool wuxuu ka kooban yahay milyanaad tusaale ahaan cadaanku tiris ma lahan Asiaanka oo Chineska Bangladeshka Pakistaniga iyo Hindida iyo Chinesku tiris ma lahan laakiin target maahan targetku waa dadka madow marka waxaa la yiraahdaa xenophobiga mase waa afrophobic marka waa afrophobic waa nacayb ku wajahan dadka Afrikaanka ah haddii aan hal mar aan arinta aan hal area kale aan ku daro waxaad dareemaysaa tusaale ahaan Soomaalida dadka wadankan jooga waxay og yihiin inay yihiin dadka kaliya ee madow ee dhalinyaro u badan ee wadankan yimid wadanka mataqaanaa 9kiisa gobol tuulo kasta oo kamida ganacsi ka sameeyay shaqo kama isan qaadan ganacsiga ay sameeyaana guriga waxa iskale oo ka karisanaya qof South Africana alaabta wuxuu ka soo gadanaya qof South Africana wholesaler dieselka oo gadanayo waa qof South Africana oo ka soo gadanaya canshuurta oo dhiibayo waxay ku baxaysaa South Africaankii VAT value added tax-ga waxaa la siinayaa dowladda South Africa marka VAT-ki marka waxaad moodaa haddii Soomaalida fikradda iyo quality-ga iyo contribution-ka ay wadanka u keenaan haddii si oo dawli ama nidaam dawli loo gado in category-ga hadda anagu aan ku jirno category aan ahayn la gelilaha baan aaminsanahay because waxaan nahay hadda koor nin oo ANC African Chief Whip baarlamaanka wuxuu si toos ah oo baarlamaanka jooga ugu yiri Soomaalidu waa black jewel waa diamond-ka oo mataqaanaa oo dadka madoobo noo yimid maxaa dhacay tuulo kasto ay waxay geeyeen service marka waxaa loo baahan yahay in annaka daan Soomaalina dadka wadanka degan sida gudoomiyaha kale dadkeena mutacalimiinta ganacsatada in aanan noqonin only defensive ee hadda kadib aan noqono proactive oo waxa aan anaku wadanka ku soo kordhinay aan maaragtay aad iyo aad aan u bomboonino dawladdan aan la wadaagno dawladda iyo safaaraduna ay naga saacidayso meediadu ay naga saacidayso waxaan u maleynayaa perception badan inuu isbedelaa sababta waxaa la yiraahdaa perception forms the reality haddii oo maanta negative laga sheegana adoo fiicnaa waad xumaanaysaa waxa laga aaminsan yahay ayaa waxay noqonaysaa had iyo goor xaqiiqada jirta marka waxaan aaminsanahay gaabin badan oo anaka dhinaceena ka timid oo inaanan isgedin haddii lagu sheego waa la sheelaa haddii lagu sheelana maxaa waa la sheegaa soo maahayn marka waxaan aaminsanahay in shaqo badan noo taal gudoomiyahana hadda kulle waa imaqayaa
waata gudoomiye bal ugu horreyntii dhinaca kale taan iraahday sida uu u dhigay hadalka mahad oo hadee muddo waaye araga kusoo noolaa waddankaas waqti aad u dheer ma kula muuqataa in maaragtay soomaalida sida ay hadda u muuqdaan ay wax ka bedelaan ayaga laftirkooda si xaalku wax isbedel uu u yimaado waa mahadsan tahay arrinkaas waa arrin jiro haddana waxaan samaynay platformka ugu horreeya oon ka shaqogelayna inuu asiga noo noqdaa noo qorshaysan soomaalidana arrinkaas way ku baraarugsan tahay sida walaalkeen ganacsada mahad oo kaleeto waxaa jiro soomaalida bes xitaa ma ahan dadka localka ee afrikaanka ee south afrikaanka inta badan markay debate ka samaynayaan social mediaha oo soomaalida dhinaca xun wax looga sheego wayna difaacaan oo way u sheegaan waxay yidhaaheen dadkan waa dad proactive ah waa dad ganacsigii tuulooyinka noo keenay tusaale ahaan waxay leeyihin haddii dukaamankii ay south afrikaanka kiraysteen aad ka xirtaan waddankan aad ka raacdaysaan waxaad ogaan doontaan in ay noqon doonto haddii aad rooti u baahataan qaadan doontaan taxi rootiga aad township ka soo gadan doontaan markaad soo noqotaan aad taxi ku soo laaban doontaan meeshaasay ku bixaysa lacag $10 ka badan tusaale ahaan $10 waxaa laga yaabaa $0.5 hadda inay dadkan waxay tahay $0.5 in dadkan idinku caawinayaan hadhow dhaqaale burbur idinku dhici doono hawshaan waxay noqon doontaa hawl aad ka shalay idinka jooga marka annagana waan ku baraarugsannahay waan ognahay soo afrikaankan intiisa wanaagsanna way og yihiin oo dadka hadda ayaga naga horreeya oo dadka xog sheegayo annagana waxaan rajaynaynaa insha allah barnaamijkaas inaan howlgelino oon ka dhigna active insha allah tusaale ahaan ganacsigeenna hadda awal wuxuu ku badnaa tuulooyinka hadda waxaan nimid townshibyada imaanay magaalooyinka waaweyn ganacsiyadii waaweynaan qayb ka galnay hadda marka waan u baahannahay inaan anaga naftirkeena marketing fara badan aan samayno bulshadana aan si fiican integration u samayno oon dhex galno waxyaabaha hadda aan doonayna inaan qabanay ka mid tahay insha allah waa tahay mahado ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan mahado ku weydiiyo dhinaca kaleeto ma jirtaa maadaama muddo aad u dheer meesha aad ku nooleedeen ganacsi fara badan ku leedihiin dhaqaalihii soomaalida ganacsatada ahayd uu ku lumaya dadkii dhalinyaro fara badan lagu leenayo meeshii dowladda ma la hadasheen xiriir ma la yeelateen oo ma tusteen sida ahmiyadda ay soo galootiga gaar ahaanna soomaalida ugu leeyihiin waddanka haddii aan xaqiiqada aan u hadlo horta hal mar aan waxaan rabaa inaan ku noqdo ganacsiga soomaalida iyo structurekiisa si xataa soomaalidu ay wax badan uga fahamto horta ganacsiga soomaalida wuxuu kusoo bilowday elementare in suuqa alaab la dhigto in dukaameer yar oo haddana oo mataqaanaa kooban oo tuulooyin ku dhex yaalo laga dhex shaqaysto haddana wuxuu usoo gudbay inuu magaalooyinka waaweyn oo yimaado oo noqdo wholesaler haddana wuxuu usii gudbay inuu noqdo financial sectorkoo galay haddana wuxuu sii gala property sector oo galay haddana wuxuu galay e-hailinka oo mataqaanaa tagaasida iyo logisticada ayuu galay property businesskana waxaa ka wadaa like real estate-ka real estate oo really big ah ay Soomaalidu ay qabataa oo aad u weyn mataqaanaa petroleumka aad ugu jiraan mataqaanaa manufacturingka Soomaalidu warshado aad u fara badan ee waddanka ay ka fureen marka waxaa moodaa perceptionka oo qofka South Africaanka marka uu Soomaali oo arko waxa u sawiran wiil yar oo dhalinyaro oo aan Ingiriis aqoonin oo tuulada uu asigu uu ka yimid dukaan yar oo elementara ku gadan ka dhex shaqaysta ayaa qofka South Africaanka u sawiran marka Soomaaliduna si oo very speedy ah ay waxay ku gaarto horumar aad iyo aad u ballaaran oo formal sector-kii ay aad iyo aad u galeen marka Soomaalida ma gadnay xaqiiqiyan no perceptionka koowaad oo naga fikradda koowaad oo nagala qaatay oo hooseysay ayaan ku jirnaa weli marka waxaa nagala rabaa in aan quality-ga iyo inta aan hadda aan ku sharaxay oo Soomaali badan oo xataa Soomaali joogta ama caalamka joogta aysan naga ogeyn inaan mataqaanaa aan dowladana kula xisaabtano business councilorada aan ka mid noqono mataqaanaa trade and investment-ga aan ka mid noqono tusaale ahaan Soomaalidu waa dadka ugu yar oo waddankan sharci la'aan ku jooga waxaa laga yaabaa 2 to 3% inaysan dhameen Soomaalida aan sharciga haysan waa Soomaalidu waa dadka ugu badan ee South African citizen-ka ah ee codeeya marka waxaan u baahannahay inaan xaqiiqiyan anaka darawin back aan siman isku noqono oo aan really campaign oo fikradaha nagala qab aan ku bedeleen inaan qaadno
saasaan aamsanahay gudoomiye shirwacna waa saaray hal shay aan ku daro hadoo raalli ah waxaan rabaa inaan si toos ugu jawaabo su-aashaad weydiisay ganacsade mahad taasoo ahayd dowladda South Africa ma kala fariisateen inaad tihiin dad maaragtay proactive ah oo dhaqaalaha qayb ka ah waxaan xasuustaa 2024gii ayaa waddanka waxaa lagu soo rogay shuruucda ah in dukaamada compliance-ga ay sameeyaan la rajisgareeyo canshuurta la bixiyo ganacsi walbo meel ku yaalo canshuurta inuu bixiyo oo rule and regulationka la raaco waxaan xasuustaa madaxweynaha waddanka hadlay shuruudo aad u badan ayaa lagu soo daray maxaa la yidhahdaa foomamkii la buuxinayay oo dukaamada intaan sharciyeysnayn la sharciyeynayo aniga waxaan ka mid ahaa ganacsatadii marka anigu guddoomiye gobol ah ganacsatadii dowladda la fariisatay u sheegtay inaan nahay market weyn ganacsigana maanta qayb weyn ka kontrolsho boqolkiiba 30 ganacsiga maxaa la yidhahdaa small businesska controla ayaan nahay waan u sheegnay waxaan ku jirnaa maxaa la yidhahdaa groceryga waxaan ku jirnaa vegetableka waxaan ku jirnaa dharkaan ku jirnaa maqaayadahan ku jirnaa way aqbaleen wayna ogaadeen xaqiiqada ka jirta meeshaas sidaa daraaddeed waxay meesha ka bixiyeen shuruudo aan qaarkood aanan awoodin inaan annaga aan ka soo baxnay meesha ka bixiyeen sidaasna waxaa noogu suurto gashay ganacsiyyaasheena boqolkiiba boqol inaan diiwaan gelino oy dowladda diiwaan gashan yihiin noqono canshuur bixiyayaal noqono dad maaragtay raacay rulkii regulationka waddanka marka way og yihiin oo waan kala fariisanay dowladda Soomaaliyeedna way og tahay nafsirkeeda inaan nahay dad business people oo meesha joogo sidoo maad u sheegay waaye waxaan u badanahay dhalinyaro boqolkiiba 90 waddanka waxa joogo kullina waxaa wada nahay ganacsato dowladdeennana ama safaaradeennana waxaa joogto ataajiga ganacsiga oo asiga naftirkiisa qaybo badan ka qaatay dowladdan u bandhigay waxaan meesha ku hayno og oo aniga shirwac ahaan aan aad maaragtay ula shaqeeyey marka waa mahadsantahay intaas rabin inaan ku daro aad baan idinku mahadcelinayaa mudanayaal waqtigiinaan qiimaha leh aad maaragtay qaybta iga siiseen si aan idinkugu wareysto arrinta mashaqada ka taagan South Africa kuwaasi waxa ay kala ahaayeen mahad cumar cabdi mahad libaax oo muddo dheer deganaa magaalada Johannesburg oo muddo dheer deganaa dalka Koonfur Afrika isla markaasina ganacsada ah waxna ku bartay waddankaasi sidoo kaleeto waxa asna aynu arrintan ka wareysano khadka dhinaca kaleeto uga jiray Mustafa Shirwac oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dhawaantan ee dooratay ee halkaasi deganna magaalada Rustenburg ee dalkaasi Koonfur Afrika waxaynu ka wada hadlaynay ama aan ka wareystayba mashaqada ka taagan Koonfur Afrika ee ka dhanka ah soo galootiga gaar ahaan Soomaalida iyo dad fara badan oo Afrikaan oo waayidii ugu dambeysay dhibaato lagu hayay halkaasi